ankaagu hadhaafo 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 ankaagu hadhaafo reer hebel. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وبعد. ما سلامي مرتدى عاوة لكن واحد سلامي هاليدا عاوة مدشان كسوغا. waxaan jecelahay saddex laba afar farriimood oo qorayna idila wadaago haddii aan noqon lahaa qabyaali waxba kamaan qadeene qudhaaniga siisaneen inaan qurun soo yeelo runtii ma jecli arrintan dhibteeda inaan aada uga hadlo oo ay Soomaalidu inta badan waxay caadaysatay oo ay dhaqan inta badan u leedahay in dhibaatooyinka amba boogaha bulshadeena haysta ay ka hadlaan laakiin inta badan caadiyada dhaqan uma leeyihiin inaynu xuduusha amba waxyaalaha inuu arkayno halka inaynu ka hadalno runtii sidaynu ognahay dhammaanteen qabyaaladu waxa ay cagaha dhigatay lix dheerdhaar oo qarannimada iyo jiritaankeena caadiga ah ay tahay mid mudan oo igu horeyso islaamnimadu oo ah sharafta ugu weyn ee dunida ku leeyahay ay maanta qabyaalada cagadeed waxaynu ognahay oo maanta qabyaaladu dhex fadhidaa guryaheennii ugu waaweynaa ee looga arrimi jiray qarannimadeena ee qabyaalada dhex fadhidaa waxay fadhidaa ganacsigii waxay dhex fadhidaa nabadii waxay dhex fadhidaa wax allaali wixii horumarka ku saabsanaa ee ugu horeysay waxbarashadii iyo caafimaadka iyo qaybihii kale oo dhan qabyaaladu sidaynu ognahay anigu waxaan u aqaanaa in ay tahay horta awalan hinaasi wax kale maaha qabyaaladu ilmo dhagaxba waxaasay samaysteen ilmo jaajurnoyna waxaa samaystaan ilmo dhagaxba waxaasay qoteen ilmo dhagaxnoyna waxay qotaan waa hinaasi anuu arrinta kalena qabyaaladu aqaana waxa weeyaan caaw idii sheegayaa qabyaaladu waa gumaysi qabyaaladu waa gumaysi weliba waa gumaysi maskaxeed oo inagina haysta runtii aayadaha qur-aanka kariimka shardalmaru wuu inala joogaa aayad waxaa jirta alla ina leeyahay watilka alayaamu yundaawuru bayna annaas oo xikmadda ku jirta ay tahay in dhibaatooyinka dadka dhexdooda lagu wareejinayo iyo wax allaali wixii samaa marka waxaan ka wadaa dhibaatadani waa dhibaato inaga ina haysato oo weliba ah dhibaato rabbaani oo inaga lanagu imtixaamiyo marka waxay mudan tahay inay dhibaatada barkano aynu huwano aynu inagu haysano iyo inaynu ka hulano aynu wax kaloo xal ah u bedelo qabyaaladu sidaynu ognahay waxay banaysatay dhowr iyo 10 arrimood oo ay diintu xaaraantinimaysay dhowr iyo 10 shay oo diintu xaaraantinimaysay qabyaaladu banaysatay waxaan idin sheegay waxyaalaha qabyaaladu u jeclaysanay xaq u tahay inuu qabyaaladu uga tagaa waxay qabyaaladu banaysatay dhiigii qofka muslimka ah way banaysatay oo maanta in reer hebel aan qof wax u yeelaa xabtaasi ka fuuday ilaahayna wuxuu inoo sheegay in hal qof oo muslima dhiigii ay dunidan oo la laabaa ay isagoo uga fududahay waxay qabyaaladu banaysatay oo aan shakiinagii nagaga jirin maalka waxaad ogtiin berigii hore in geeliyo waxaa la kala dhici jiray maantana daynu aragnaba qabyaaladu waxay banaysatay inay sharafta qofka wax yeesho oo inan maanta qofkii soo istaago sharaftiisa wax ka sheegaa wax yaroo fudud bay la tahay beenta qabyaaladu banaysatay qabyaaladu waxay banaysatay in ognahay xumaha iyo wax allaali wixii faana oo diintu ay xaaraantinimaysay qabyaaladu shay ugu aan jecelahay xitaa in idinla wadaago waxa weeyaan baasha namimiyada la yidhahdo qabyaaladu way banaysatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annamimiya laa yadkhulu ljanna ruuxad marka waxaan jecelahay markan intaa hadda baan ogahay inay qabyaaladu tahay qarankaygan curdinka ah ee somalilandna ay tahay arrimaha ugu waaweyn ee ay kusoo wareegayso ama warka ugu weyn ee dhibaatooyinka qarankayga haysta ay kusoo wareegayaan maxay ila tahay haddaba waxaan idiinla gudboon anigoo ah ninka wiilka yar ee dhalinyarada somaliland markaa ee jecel inuu arko amba ku naaloonayo inuu arko somaliland maanta jirta ka duwan anigu runtii waxaa jirta fariin yaroo ku faafiyey barta facebooka oo qabyaalada kaga dhaaranayay dadyo badan baa igu yidhi warniyo qabyaalada in xisbood ka dhaaratee imise kunoo qof baa kitaabka maalin walba gacanta saara wad kaa dhaartaa adigu maxaad kaga duwan tahay marka xaqiiqdii waa run oo waa la dhaartaa laakiin anagu dee isku qofkaa dhaaranaya isku xaaladna ma lihin isku duruufna ma lihin isku rabitaanna ma lihin isku jaha nololeedna ma lihin wax allaaliyo wax naga dhexeeya annaga iyo qofkaa kale dhaaranaya ma jiro ilaa iyo qofka qabyaalada ka dhaaranaya mooyaane marka waxaa ka wadaa qabyaaladu
dhalinyarada marka horeysan inuu ku niraano waniyo maxay haysto caqabada weyn ee dibteeda haysta waxay kugu soo jawaabayeen inay kuladaan waxaan u shaqo tagi lahay waa qabyaalad waxaan wax baran lahay waa qabyaalad waxaan caqabad oo aan loo heli lahay waa qabyaalad su'aal kasta oo bixiyo jawaabteedu waa qabyaalad marka adigu dib ugu noqoto ku tiraad war ka waran adigii qabyaaladu sidii isku tiinaa wax ku raadinay ma qabil badin karaya ilaahay way sanadeen hadii karaya marka waxaan ka wadaa in aynu qeyb ka nahay ayaynu nagu rabnaa inaynu ka cabanno marka si aan taasada loo dhicin ay waxaan qorshaystay anigoo horta marka hore maadaama ahay qof Soomaaliland daro xaq u leh inuu waxa laaliyo waxa qarankiisa ka dhacay ka hadlo inuu horta marka hore intaan anigu hadal qabyaalada dibadda ka istaago waana waxaan samayn karno dhammaantiin haddii aynu inagu rabno Soomaaliland inuu jecel nahay nooc ay noqoto وهذا ينقبنا ما تديوجا دنيا قرومها تقتمين لا تتنو وعندما واحد ينقو أولين يدرك ويستعين قبيلته وشعل هاينا هذا طلع جب هذا كان أقوى كل اليوم بدن ويجو شعل يسند دونا إن قبيلته كحروبا وأرك دونا خلي عن قبيل أيضا كافية كعادون كان واحد شعل هاينا نقدر من إنه يبقى فرص ما لنا تنينو دمان شعل هاي وهذا ينقبها الديدينو ما أنت سميه بالوجوب باقي ولد كان بين كان قبيلة دي أبو نصر بيرتاح واحد شعل هاي فرنتي جب دور أرين صدق عرنا عنقو أرين حالته هاي قد حاولت هاي ندير كلو ما هاي نجيب تكالو سماد وشيء أو حيلها دبتها دوبا لكن فلوسها تبدأ ما تعبطه أنا ما واحد شعل هاي حتى كل سياسي فعلا غلط فرديا عبد الرحمن واحد شعل هاي إني نبرر تهلنا واحد سمال لنا هاي أنا مجالا شوجا magaalada joogo ma garanay wax allaaliyo waxay dadka magaalada ku nool ay wada leeyihiin wax kasta wala kala sheeganaya wax allaaliyo wax kaste cid gaar ah sheeganaysa marka hadii inagu aanu rabno inaynu bahasha inuu u helno xal waqti aanu helno wax la wada leeyahay oo maanta golahan aynu caawa joognahay naga dhaxeeyo inteenan cid allaaliyo cid doontiin haada laakiin golahan caawa inaga naga dhaxeeyo oo waxaynu inagu wada leenahay برتقال هلا عم بفكر عم بقرأتي عم بقوم عم بمر واحد نقدر نقول عن كلام واحد كلام هي ما أبدأ هيلي كنا ولا هيلي كراية واحد قبيلة اللي يقولوا واحد قبيلة واحد تمانا قد الدور شيء واحد ما ثاني هذول يقولوا عقب حلقة أبا إنه إنه قرآن يقول هذا إني بسود لي خلاص إلى هاي مكانه هدي يقول دمعه عصفور تريا هدي واحد كلا دمعه دريتي وفنقنيه marka waxay ka duwan oo la dhammaan qaali karayo baahida qofka hadii uu heli karayo taasna waa xal loo ku badbaadi karo sidoo kale waxay sheegayaan deeyo guurkii intay hal dhaw dhalinyaradi guurkii saddexdood guurkan ay sameeyno anigu imika magaalada joogay qorsheero aanan jeclayn inaan hordhici sidii sheegaya awrarkiisa anigu burco waxaan ka wadnaa arrin bal aroos wadareedina ka diyaarno burco aroos wadareed inuu ka sameeyo oo aanu dadkiis dhexgelino marka waxaan jecelahay arrin kasta dibteeda waynu maray laakiin aynu ogaano arrinkan inuu yahay dhibaato rabbaaniya ilaahayna qoom kuma taxaamo ilaa iyo aanay u lahayn awoodooda ay ku xallin karayaan marka waxaan jecelahay inay dhammaanteen qabeeda ku xoroono aynu tuurno garashada aynu u nacayno inaynu ku tuurno marka waxaan jecelahay inaan intaa kalmadeedu kusoo gabagabeeyo hal ku dhigyo oo leeyahay nin qabyaaladid oo iminka Bristol jooga oo aan saaxiibanahay ninkaasi wuxuu ku jiray nimanka ugu waaweyn ee kacdoonada noocan ka qayb qaata wuxuu yiri anigoo dalweyniyo waxa la yiraahdaa maxamed haykal maxamed cabdi oo jeclana xusub ciisa wuxuu yiri anigoo dalweyniyo dawladnimo tis qaadiyo darajiye lib heli kara degmo laygu koobiyo tubfiya halitiyo dandan ma la karo ما سيدي سوى درتها لكن توقف بس نقصد قادني وحولي نكسته هديده وحن دونيا نلول كده وين انت هنقبو وحن دونيا قيف أن لقيت ورين ددال لقول صباحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكاغو هدافو أنكاغو هدافو ريهبل